السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada muuqaal xiiso badan oo insha Allah taala aynu si guud ama guud ahaan si common ah ugu eegi doono waxa loo yaqaano ilhaad ama mulhid. laga yaabaa inay kuwa badan oo idinkeedii kamid yihiin ay isweydiinayaan ereyga ilhaad ama talow ilhaad muxuu yahay. haddaba haddii ilaahay uu ka dhigo maadaama aynu nahay ummad muslimiina waxa aynu ka hadli doonaa waxa inagu waajiba ama inuu ka hadalno inagu waajiba in aynu ogaano waxa diinteena islaamka ah ku lidka ama ka soo horjeeda. haddaba ereygan ilhaad haddii aynu si guud ahaan u tilmaamo, mulhidku ama atheistic waxa loo yaqaan afka qalaad waa inuu qofku diido iimaanka iyo jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. ama mulhidku waa qofka diidan rumaynta Ilaahay. waxa kale oo jira iyaguna qolo la dhaho agnostic afka qalaad oo macnaheedu noqonayo marka Soomaali karino ma yaqaanayaal waa falsafad kamid ah mulhidiinta oo ayaguna ka shakisan wax kasta ama aan sheegi karin in Ilaahay uu jiro iyo in kale. dadka inta badan dafira jiritaanka Ilaahay waxay gabaad ka dhigtaan culumta sayniska iyo hadba wixii dadku ay tijaabo ay ku gaaraan. waxayna oran karnaa waa marmarsiyo kaliya in ay marba falsafad aan xaqiiqo ahayn raacaan, sababtuna waa qalbigooda oo buka ama maslaxad shakhsiyadeed ayaa ku kalifta in ay sameeyaan arrinkan. sidoo kale waxaa dhici karaysa in ay iimaanka Ilaahay ay u diidayaan xaasidnimo iyo xiqdi ay u hayaan dadka diinta xaqa ah haysta ee islaamka ah. waagii hore dadka diinta Ilaahay ama dafira Ilaahay subhanahu wa ta'ala jiritaankiisa waxay ahaayeen dad jaahiliin ah oo aan aqoon badan u lahayn. kaliya waxa ay dafiri jireen daliilada Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo dhiibo nabiyadiisa iyo mucjisooyinka ay la yimaadaan nabiyadu. hase ahaatee xilliyadii ay dhacday kacdoonkii warshadaha ee reer Yurub ayaa dadkii reer galbeedka ahaa waxay si qoto dheer ugu xirmeen culumta sayniska iyo tiknoolajiyadda. sababta keentay dad badan in ay ku xirmaan ama ay noqdaan mulhidiin oo reer galbeed ah waxay ahayd cadaadis kaga imanayay xagga kaniisadaha oo ka soo horjeeday horumarka culumta iyo guud ahaan wax kasta oo ay u arkayeen in ay lid ku tahay danaha kiniisadda iyo baadiriyiinta kiristaanka ah. dadkii oo cadho badan qaba ayaa mar kaliya waxa ay heleen marmarsiyo ama wax ay gabaad ka dhigtaan oo ay dafiraan jiritaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. intooda badanina waxa ay mulhidnimada qaateen ama ay mulhidiin noqdeen kolkii ay arkeen Baybalku in uu Baybalku iska hor imanayo isla markaana aanu ka jawaabi kareynin su'aalaha waaqica ah ee waafaqsan xaqiiqada. fikradda evaluation-ka falsafada ugu badan ee ay qaateen mulhidiintu waxay ahayd aragtida uu asaaskeeda dhigay ama uu lahaa ninkii u dhashay waddanka Ingiriiska ee magaciisa loo yaqaan Charles Darwin. ninkaas oo qoray kitaabkiisa caanka ahaa ee loo yaqaanay The Origin of Species asalka noocyada.